wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdirashiid Riyaraac iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax ayaa ku wareejiyay deegaanada Shululuux iyo sidoo kale Coodanle ee gobolka Buuhoodle mashiino riigga deegaanadaasi ay ku shaqeyn doonaan maadaama waqtigan lagu jiro xaalada abaareed iyo biyo dhaamis. Kormeerkan ayaa waxaa mas'uuliyiinta ku helinayay isuduwayaasha wasaaradda xanaanada xoolaha, biyaha iyo sidoo kale caafimaadka iyo qaar ka mid ah gudida abaaraha ee gobolka Togdheer. Wasiiru dowlaha xanaanada xoolaha iyo gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay inay ka go'an inay mar walba u gurmadaan dadkooda ay abaartu saameysay waxaana ay yiraahdeen waxa xoolo ka cabaya iyo sida uu shaqeynayo waxa jira arrimada caado ceelka laga fidiyo ah in dadka deegaanku diidan yahay iyo in aan loo sinayn qaabka looga cabo iyo in aanu nabadgelyo ahayn saddexda midna waxba kama jiraan saaka anaga joogna waxa weeyaan labadii mishiin ee cusba ee labada ceel la kala geynayay ceelkii hore shalay baanu soo wareejinay oo la dejiyay waxaan halkan sidnaa mishiinkii labaad ee la dhigayay Coodanle kii Shululuux shalay baan wareejinay ugu mahadnaqayaa wasiirka maaliyadda waxa inta noo weheliyaa balaqaadkii madaxweynaha ee ahaa in soo guurtada loo keeno bustayaal in aanu keenay kunkii bustaba inay maanta Coodanle yaalaan hase yeeshee aan wax degaan waxba ku lahayn tii beeninaya dacaayad beena oo la keenay Hargeysa Burco iyo dad warxumatashi had iyo jeeraale la wareegaan aan leenahay runtii ka waantooba nasiib wanaag maanta la xogtay in halka ku kulanay baaq weyn xukuumadda u jeedinay ah in motor labaad degdeg emergency ah oo ceelka u baahan yahay hadduu kaas istaago ay waxniba ay baabaayaan maanta motorkii waa leeno sida weyn ku guulaysanay alxamdulillah rabbil caalamiin. isuduwayaasha wasaaradda biyaha ee gobolada bariga Soomaaliland waxgaradka iyo odayaasha deegaanada ay mas'uuliyiintani gaareen ayaa iyaguna dhankooda ku hambaliyay xukuumadda gurmadka ay har iyo habeenba la garab taagan tahay dadka abaaraysan. waxaanu leenahay dadka deegaanka xoolaha halka ka cabaya wax lacaga oo laga qaadaya ma jirto. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraanyo iyo wasiirka arrimaha gudaha dhammaan way ka soo jawaabeen يعني باهدي iyo gurmadkii aanu ka codsanay. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa ku wareejiyay odayaasha iyo waxgaradka Coodanle bustayaal loogu talagalay reer guuraaga intaasi kadibna waxa uu socdaal ku soo maray deegaano ka tirsan gobolka gaar ahaan jiidaha Qorlugud Baledhiig Riyo Xidho Durqsi iyo sidoo kale Waraabeeye kuwaas oo uu soo kormeeray mashaariic ka socota deegaanadaas oo ay ka mid yihiin riigga lagu qodayo qaar ka mid ah deegaanadaasi. riigana talaabo cad baanu ka qaadaynaa hadii Ilaahay ka dhigo waa u yeelaynaa shirkadii maadaama gobolkii mas'uulka ah labada shirkadoodba waa inaanu talaabo cad iyo wasaaradda go'aan cad baanu ka wada qaadanaynaa soo guurtadii badi xoolii kaba dhaqaaqo waa noqonayaan wadadaas aanu shalay soo haynay ilaa qabr hulul waxa xoolo sii daadsan wad yaabaysa waxa weeyaan haday dadkii la laba tagaan iyaga ku bureysada midna waa ku baraarujinayaayo xoolahan gawaadhida la saarayaa la iska day xooli la qaadaa meel kastoo la geeyo waxba ka soo noqon maayaan war wixii deegaano halkiina ilaahayna ku barya waa Cabdisalaan Axmed Awood Cabdi Jermani Bulsha TV Burco.